هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ waxaan isku day doonaa barnaamijka maanta inaynu ku iftiimino waxyaabo nolosheena muhiim u ah marka aynu doonayno inaynu nafaheena ka dhigno mid nolol heer sare ah ku nool oo adduunkana raaxo ku nool aakhirana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali ahaanshihiisa gaarta waxaynu isku dayeynaa in aynu maalinba in wax ka iftiimino wax walba kuma koobi karno daqiiqadaha yar aynu doonayno inaynu isla wadaagno haddaba maanta waxaan doonayaa barnaamijkan in aan ku iftiimiyo waa marka ugu horreysay shayga la yiraahdo horumarku sidiisa muxuu u baahan yahay horumarka noloshaadu wuxuu u baahan yahay naf u laylisan in ay qabato hoggaanka nafteeda haddaysan se naftaadu haynin jaraha wixii ay doonaysay nafteeda inay ku edbiso waxaan u malaynayaa waxaa la gaaray wakhtigii aad u qaban lahayd qiimahaaga waad ii sheegi kartaa markaanse jadwal maalmeedkaaga ama kalendarkaaga arko ayaan rumaysan karaa haddaba sidee ayaan u dhisi karaa jadwalkan ku hagaajin lahaa noloshayda kala yacsan waxaan doonayaa inaan kula wadaago qodobo kooban qodobka koobaad subaxii waagu markuu kuu baryo waxaad ka fogaataa aaladaha internetka oo dhan taleefankaaga ha fiirin laptopkaaga ha daarin ka durug waxaad ku jirtaa saacadaha waqtiga cimrigaaga ugu muhiimsan uguna qaalisan waa waqtigii aad Allah subxaanahu wa ta'aala mahadin lahayd waa waqtigii aad ka fakari lahayd nicmooyinka Ilaahay tabaaraka wa ta'aala uu ku siiyey ee kugu wareegsan waa waqtigaad Rabbi tabaaraka wa ta'aala maalinimada bilowgeeda aad weydiisan lahayd sidii uu kugu kaalmayn lahaa ma mudna in aynu cimrigeena iyo waqtigeena ku bixino saacadaha ugu qaalisan ee ugu horreeya waa bariga inaynu ku bixino inaynu jaagarayno internetka iyo wixii xalal soo geliyay intaan hurday waxa taas oo sabab kugu noqonaysaa inaad joodariga ku dibdhacdid waxa taas sabab kugu noqonaysaa inaad waxyaabo fara badan oo muhiim ku ah oo qabsan lahayd inaad ka dibdhacdid waxa taas oo sabab kugu noqon kartaa waana tan u darane inay niyad jab ka soo gaaro ka fogow aaladaha internetka waagu markuu ku bariyo cimrigaaga ihsaan weyn ayaad u sameynaysaa qodobka labaad jirkaaga ihsaan u samee jimicso jirkaaga kala bixbixi subaxii waxaad kacdaa joodariga markaad ka degtid wuxuun exercise samee jimicsi intuu doonaba ha leekaado 3 daqiiqo 2 daqiiqo intuu doono ha leekaado wuxuun jimicsi samee oo jirkaaga ihsaan samee qodobka saddexaad quraaco waa qodob dadka in fara badan ay sahladaan oo fududaystaan inuusan qofku quraacanin oo saa ku socdo isku day inaad quraactid subaxii quraacdan cunaysidna inay noqoto quraac isu dheelitiran oo miisaaman quraac macaanku uusan ku badnayn maxaa yeelay waxa dhacda qofku markuu macaan fara badan subaxii qaado in duhurkii dhowr saac kadib markii uu ka soo kacay joodariga in la arko hebel isagoo hamaansanaya isagoo caajisan isagoo wax walba ay dhibayaan oo ka xanaaqaya wax yar waxaana keenaya waxyaabaha macaanku ku badan yahay oo aad cunaysid sidaa darteed naftaada u ihsaan samee oo quraac isu dheelitiran oo miisaaman cun qodobka afaraad waa labiskaaga diyaarso maalinimadaadu waxay ka soo bilaabataa habeenkii markaad seexanaysid habeenkii intaadan seexan ka hor waxaad diyaarsataa dharkaad ku labisanaysid rag iyo dumar ku doonaba ha noqdo sigsaantaada kabahaaga iyo dharka aad hoos ka gashanaysid iyo kuwa koraad ka gashanaysidba taasu waxay ku reebaysaa waqti fara badan oo waxyaabo fara badan oo muhiim ah ku qabsatid subaxii waxa dhacda in qofku soo kaco subaxii soo qubaysto kadibna uu armaajada dharka soo hor istaago oo garan waayo wuxuu gashanayo ka bacdina uu waqti kullumiyo halka inta uu ka fakarayo maxaan gashadaa ma surweelkan ma xijaabkan baan xirtaa gabadhu intay leedahay intuu hadba shay inta deegaysid marka habeenkii intaadan seexan ka hor diyaarso dharka aad gashanaysid qodobkeena shanaad maanta wuxuu yahay subaxii markaad soo kacday biyo cab in fara badan dadku ma jeclaynay biyo cabaan aroortii laakiin isku day biyo qandaca inaad aroortii cabtid oo jirkaaga wasakh fara badan ayay ka nadiifinaysaa ku dadaal biyo cab waagu markuu ku bariyo maxaa yeelay waxaad huruday 8 saac 6 saac 7 saacadood oo jirkaagu uu jiifay oo qalalnaa baa jirta
oo wax qoyriya aysan gelinin sidaa darteed ku dadaal inaad ugu yaraan hal galaas oo biyo inaad cabtid subaxii qodobka kale wuxuu yahay salaada subax kadib waxaad isku daydaa intay doontaba ha noqotay inaad wax kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad ka akhridid waa qofka doonaya in uu guulaysto meesha maalinimadiisu ay ka bilaabato oo waxyaabaha ugu horeeya ugu muhiimsan waa tiirarka ugu muhiimsan ay tahay qofku inuu dhulka ku aasto markuu subaxii waagu bariyo Allah inuu mahadiyo maalinimadaada waa inay dhammaad iyo bilow iyo dhexdhexaadba waa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax ku leeyahay waa inaad waqtiga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku siiyo wax ka siisid oo aad rabbiga kaalmaysatid oo bareeg ka qaadatid waxyaabaha kale oo dhan oo tirada yaa rabbi intaan wad soo kaalmaysay inta hartayna Ilaahu i kaalmeen taasaad guuldaba ku gaari karaysaa adduunyo aakhiraba qodobkeena toddobaad maanta wuxuu yahay cadayo oo findhicilo markaynu cunto cunno ilkaheena waxa ku harta cuntadaasuna waxay keentaa in hawada afkaaga ka soo baxaysa isbedesho haddii afkaaga hawada ka soo baxaysa aysan caraf lahayn ama dadku ay dhibsanayaan dadku kuma soo dhawaanayaan way ka durkayaan marka dadku yey ku dhibsan waxa kale oo muhiim ah qofku inuu isqurxiyo inuu si fiican u labisto inaad caraftaada ka shaqaysid haddaad rag tahay gaar ahaan in aad isticmaashid barfuunada carafta badan oo loogu talagalay ragga in aad cidiyahaaga nadiifisid in aad si fiican u qubaysatid oo jirkaaga wasakhda ka dhaqdid in aad ku dadaashid quruxdaada guud ahaan inaad noqotid qof nadaafad leh timahaaga shalnaysid inaad noqotid qof dadku ay jeclaystaan markuu soo ag fariisto caraftiisu ay soo gaarto waa in ninka ragga alla dareemo markuu soo galo qol caraftiisa waa in laga dhex dareemo taasu waxay sabab kuugu noqonaysaa in dadku ay ku jeclaystaan in kugu soo dhawaadaan qodobka 8aad wuxuu yahay maxaan maanta u baahanay inaan qabto subaxnimadaada inaad soo qaadatid warqad yar oo ku qortid 2 ilaa 3 shay oo maalinta kuugu muhiimsan ay tahay maanta waa inaan qabto hawshan waxay doontaa noqoto inaad ka fakartid oo wax adag oo aadan qaban karin aad soo saartid looma baahna waxa loo baahay noloshaadu inay wax fudud noqoto qofkuna ba sidiisa meeshu u socdo dhankeedu aadaa oon ka wado tallaababa haddaad qaadid hal tallaabo kaliya haddaad sanadkii qaadid waxaad dhaantaa boqolaal qof oo kale halka tallaabo kuba fakirin inay qaadaan iska dhaafe markaynu dadaalno qodobka 9aad oo ah qodobka maanta ugu dambeeya waa qolkaaga jiifka layri oon ka wado daaqadaha u fur qolkaaga jiifka waxa marmarka qaarkood dhacda in qofku uu labisto barfuun carfoon isku shubo dhar nadiif oo san hore u gashanin oo dhaqan uu gashado kadibna markuu banaanka u baxo ay uu iska dareemo in ay dharkiisa wali ka soo urayso suugadii iyo canjeeradii iyo guriga cuntada lagu karinayay taa waxa keena in qolkaaga jiifka iyo jikadu ay isu ballaqan yihiin waxaad samaysaa subaxi waagu markuu ku bariyo soo kacdid tabcan guriga cuntada lagu karinayo waxaad samaysaa qolkaaga jiifka albaabkiisa xir daaqadahana u ballaq taas waxay keenaysaa in urkii cuntada ee ka imaanaya xagga jikada inuusan qolkaaga galin oo albaabkooda u soo laabtay daaqadu waxay ka kaalmaynaysaa hawadii xalay ku jirtay guriga ayay ka saaraysaa waxaad kaloo samaysaa oo ku kaalmayn kara oo ka dhigi kara noloshaada waxyaabaha farxadeeda ka qayb qaadanaya waxa kamid ah in aad joodarigaaga goglatid inaad laalaabtid inaad fidsatid joodarigaaga taas sabab waxay kugu noqonaysaa markaad hadhow soo noqotid oo shaqo ka timaadid in qolkaagiyo carfoon oo hawada ku jirta ay naacaw macaan oo nadiif ay tahay iyo sariirtaadii ku goglan in badanna waa dhacday inaynu aragno in qofku uu ama masaajidka yimaado ama shaqada yimaado iyadoo gurigiisa cuntadii lagu karinayay ka soo urayso waxaan doonaynaa in aynu noqono nafo nadiif ah oo dadku markay u soo dhawaadaan ay carafta afkooda ka soo baxaysa carafta jirkooda ka soo baxaysa dharkooda
carabta ka soo baxaysa labiska aynu qabnaynu gashannahay dad la jeclaysta la joogooda inaynu noqonno oo aynu nafaheenna ku dadaalno in ay noqdaan dhan walba naf maaragtay ka wanaagsan oo ka toosan haddii aad haysatid dharka aad haysatid nadiifso dadku waxay isdheer yihiin maaha lacagta laakiin dadku waxay isdheer yihiin qof walbaaba sida uu inta uu haysto uu nadiifsado waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood inaad aragtid baabuur 1990kii ah iyo baabuur 2018 ah laakiin labada baabuur kii 90kii gudihiisa markaad gashid waad raaxaysanaysaa kan kale markaad gashidna waad dhibsanaysaa maxaa keenaya waxyaabo fara badan baa ka qayb qaadan kara laakiin inaad kan soo gashid 2018 gudihiisa oo uu wasakh meel walba waxa yaal caag meel walba waxa yaal tiishkii gacmaha lagu tirtirtay inta waxa ku jira waraaqa tira badan waad dhibsanaysaa ciriir baad dareemaysaa gudihiisa markaad soo gashid ka kale markaad gashid oo 90meeyadii ah gudihiisu waa nadiif waa tirtiran yahay waa kala urursan yahay sida darteed nadaafadu waa qayb ka mid ah quruxda inta ayaan ku gabagabaynaynaa barnaamijkeenii irigelinta nafta waxyaabo fara badan oo kale aynu isu sheegi lahayn way jiraan laakiin waqtigan inoo saamixinaynin waxaana dhammaanteenba aynu rajaynaynaa markaynu maalinba in yar nolosheena ka bedelno waxaana dhammaanteen rajaynaynaa maalin walba markaan hal tallaabo u qaadno xagga hagaaga nolosheena in aynu markaa gaarno oo ku noolaano macaanka nolosha aynu doonayno subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun cala almursaliin والحمد لله رب العالمين.